الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. kelimadan waxay ku saabsan tahay haddii Allah subxaanahu wa tacaala idmo fadlu shahri ramadaan. Bisha ramadaan maanta 10 noo ah, saddex marka loo qaybiyo qaybtii hore ay dhammaadkeedii lagu jiro, saddex meelood laba meel ay ka hartay, inaynu isxasuusino wax ka mid a fadaa'isha bishaas ku sugan. bisha iyada ah, qofkii ilaahay waafajiyo subxaanahu wa tacaala inuu xaqiijiyo wixii loo jideeyey ee ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu caabudo oo qofku allah ka cabsi iyo daaco uu la yimaado. qofka isagaa waxaa xaq ku ah allah subxaanahu wa tacaala inuu uga mahadnaqo nicmada weyninka badan ee uu u galay. walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun. qofkii la waafajiyo inuu bisha ramadaan la yimaado taqwa allah, waa wixii ilaahay u jideeya soonke. yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. allah wuxuu u jideeya soonka in lagu xaqiijiyo taqwaahu, alla ka cabsigiisa, daacadiisa subxaanahu wa tacaala. qofkii marka taa ku xaqiijiya ee allahulkariim u dhammaystiro, waxaa xaq ku ah inuu ilaahay u mahadnaqo. yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra walitukmilu alcidda walitukabiru allaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun. uu ilaahay ku weyneeyo ilaahay qofka inuu hanuuniyey, waafajiyey maalintii inuu bisha soomo, waafajiyey habeenkii inuu daacaysto salaada iyo khayraadkii kale, ilaahay uga mahadnaqo. maxaa yeelay qofkaas ilaahay wuxuu waafajiyey wax weynin badan. marka bisha ramadaan waa fadlun min fadli illaahi tabaaraka wa tacaala, ilaahay fadligiisa wax ka mida waa. sidaa awgeed ayaa nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam ugu bishaaray jiray saxaabadiisa. uu oran jiray ataakum shahru ramadaan, ataakum shahrun mubaarak, waxaa idin yimaaday bil barakaysan. soomidda bisha la soomana waa tiir ka mida tiirarka islaamka. waa bisha nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam ku sheegay in albaabada jannada la furo, kuwa naartana la xiro, shayaadiinta kuwa maradada ee si madaxa adagna la katiinadeeyo. bishaas barakaysan habeenka ugu weyn sanadka ayaa ku sugan, oo ah habeen allah subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay inuu ka khayr badan yahay 1,000 bilood. qofkii khayrkeeda la dhaafiyana inuu yahay maxruumulkhayr, qof khayrkii la dhaafiyey. bisha ramadaan fadaa'isheeda waxaa ka mid ah qofka inuu leeyahay duco laga aqbalo, oo allah subxaanahu wa tacaala hadduu baryo oo allahulkariim baryahaas ka yeelayo. waxaa fadaa'isheeda ka mid ah habeen kasta oo habeenadeeda ka mid ah in allahulkariim addoommadiisa qaar uu naarta ka xoreeyo. lilaahi cutaqaa uu leeyahay subxaanahu wa tacaala. bisha waa shahrulgufraan, bishii dembi dhaafa waay. qofkii maalintii sooma dembi dhaaf buu ku helaa wixii dunuubahoo hore uga dhacay. sidoo kale qofka habeenkii tukada salaatuleylkii ama taraawiixdii ama tahajudkii, waxuu leeyahay isagana dembi dhaaf wixii soo dhaafay. sidaasoo kale habeenka leylatulqadriga qofka tukada isaguna wuxuu leeyahay dembi dhaaf. marka asbaabo fara badan allahulkariim subxaanahu wa tacaala addoommadiisa
oo ugu dembi dhaafaa bishaas gudaheeda. bishaas waa bisha ilaahay subxaanahu watacaala oo camalka uu ku jideeya ee soonka ah uu isu tiiriyey subxaanahu watacaala ee uu yidhi fa innahu lii anaa iskale soonka. dhammaan qofku wuxuu sameeyo qur'aan aqrin, miskiin la booqdo, qaraabo la xiriiriyo, salaad la tukado, xaj la guto iyo acmaasha isagaa iskale. laakiin soonka allah wuxuu yidhi fa innahu lii anaa iskale. idaafatu tashriif, ilahay isagaa isu tiiriyey. wax walba allah baa leh subxaana, laakiin sidii shaygii uu si gaara ilaahay isugu tiiriyo anaa leh uu yidhaahdo, sida beytullaahi oo kale, masjidkii oo kale, naaqatullaahi hashi mucjizadaah nabiyullaahi saalix la siiyo oo kale, shayguu ilaahay isu tiiriyo waa waxau tusinaa shaygaa weyne iyo qiimo iyo qadar. fadaaisha waxaa ka mid a soonka, ama ha noqdo soonka ugu fadliga badan waa bisha ramadaankan lagu soomo, ama si guudba soonkii sunnooyinka ha ahaadee, in ilaahay subxaana watacaala qofka naarta kaga fogeeyo. hal maalin ilaahay dartii qofka u soomo 70 sana ilaahay naarta ka fogeeya. soonku wuxuu qofka uga yahay naarta iyo macsida iyo akhlaaqda xun junna ayuu kaga yahay, meeluu kaga gabaadsado oo ka galo. soonka qofka sooma, sida nebigu sala allahu calayh waaalih wasalam caddeeyey, wuxuu leeyahay xaalado uu ku farxo. waxaa ka mid a 2 xaaladood. xaalad waa midda uu qofku markuu afuraayo. xaaladda labaadna waa markuu qofku rabbigii subxaana watacaala la kulmaayo. 2da xaaladood qofku wuu farxaa. marka uu afuraayo wuxuu ku farxaa inuu afuray, ama ha ahaato inuu maalintii soonkeedii ka afuray, ama ha ahaato waa midda kasii weyn inuu bishii ramadaan soonkeedii ka afuray. qofku wuu farxaa, wuxuuna u farxaa 2 arrin. tan ugu weyn waxa waaye wuxuu ku farxaa cibaadadii ilaahay subxaanahu watacaala inuu gutay, soonkii ilaahay subxaanahu watacaala inuu waafajiyey, caafimaad iyo nabadgelyo iyo arsaaq iyo nicmooyin fara badan oo qofka ku kulmay darteed, oo hanuunku ugu weyn yahay inuu qofkii soonkii ku dhammaystirtay, cibaadadii uu ku gutay, wuu ku farxaa marka arrintaa iyada. maanta ilaahay baa soonka ii dhammaystiray, wuu ku farxaa qofka mu'minka ah. bishii ramadaan ilaahay baa ii dhammaystiray, wuu ku farxaa qofkii. waxaa kaloo ku farxaa biyihii uu baahnaa iyo cuntadii uu ka soomay iyo wixii kale ilaahay subxaana watacaala kaga xarimay intuu sooman yahay, inuu ilaahay u ogolaaday, uu dib ugu ogolaadana wuu ku farxaa. marka qofkii markuu afuraayo, ama bishii ha ka afuro ama maalintii ha ka afuree, wuu farxaa. waxaa kaloo farxa xaaladda labaad, tan ugu weyn, rabbulcaalamiin markuu la kulmaayo maalinta qiyaamada. oo farxadda waxaa keenaysa ajirkii bisha ramadaan ee soonka, ee allah caza wajal xadiisulqudsi ku yidhi wa ana ajzii bihi, anaa amaal marinayo, amaalmarinta soonka anaa bixinayo allah yidhi. oo macnaheedu tahay ilaahay inuu addoommada ka qariyey abaalgudka soonka lagu helo. acmaasha kale malaa'igtu way garanayaan qofku hadduu shaygaas sameeyo muxuu helaa. man qara'a xarfan min kitaab illaahi falahu biha xasana, xaraf kitaabka ilahay ka mida qofku akhriya xasanoo ku leeyahy, tusaale ahaan. laakiin soonka qofku intuu ku helaayo allah unbaa garanaya subxaana watacaala. inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab. waxaa sooma soonka mashruuca ah qof sabra. dadka sabrana ilaahay abaalgudkooda xisaab la'aan buu siiya. maalintaasuu marka qofku ogaanaa, khaasatan rabbi subxaana markuu hor istaago ayuu ka war helayaa abaalgudka uu ku leeyahay soonkii uu soomay, markaabuu farxaa. fadaaisha marka bisha aaday u badan tahay.
waana runtii isxasuusin waaye waxa idinku cusub maaha laakiin allah baa yidhi subxaana wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin waani maxaa yeelay waanadu waxay anfacdaa mu'miniinta qofka mu'minka ah ee khayrka niyeysta ee waanada inuu ku intifaaco ka faa'iidaysto niyeysta wuu ka faa'iidaa maxaa yeelay allah baa yidhi in yaclam illaahu fii quluubikum khayran yu'tikum khayra ilaahay qalbigiina khayr hadduu ka ogaado khayr buu idin siin nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam inama alacmaalu binniyaati wa inama likulli mri'in maa nawaa qofku wuxuu leeyahay marka wuxuu niyeysto qofku u niyeysta kelimadaas iyada ah wacdiga iyo waanada qur-aanka kariimka u akhrinayo inuu ku dhaqmo oo u hoggaansamo oo uu fuliyo ilaahay subxaanahu watacaala bifadlihi wa karamihi wa juudihi wa ixsaanihi wa birihi wuu waafajinaa qofkii marka ulajeedku waa sidaas walaalayaal fadaa'isha waaweyn ee bisha ramadaan laga helo waxaa ka mid a amaba guud ahaan soonka qofka asagoo sooman dhinta jannaduu galaa isagoo sooman qofkay naftu ka baxdo oo soonkii loogu khaatimo loogu dhammaystiro cumrigiisa jannaduu galaa ayuu yidhi nebigu sala allahu calayh waaalih wasalam haddii aan marka arrimahaas aan sheegay wax uun aan nusuusta ka tilmaamo waxaa ka mid ah xadiidka imaam axmed raximah allahu tacaala uu soo saaray min xadiidi abi umaamata radia allahu canhu sheekh alalbanina uu saxiix yeelay nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaa laga wariyey inuu yidhi lilaahi cinda kulli fitrin cutaqaa'u lilaahi alla wuxuu leeyahay oo u sugnaaday cinda kulli fitrin afur kasta agtiisa cutaqaa'u kuwa la xoreeyo mar kasta oo qofka afuraayo ilaahay subxaanahu watacaala waa bisha ramadaan dhammaanteed addoommadiisa qaar ka mida oo ilaahay naarta ka xoreeya ilaahayga kariimka ha nugu daro marka fadliga bisha ramadaanay ka mid tahay waxaa ka mid ah bisha ramadaan fadligeeda arrinta uu ku sheegay nebigu calayhi salaatu wassalaam xadiidka uu soo saaray alimaam albazaar fi kashf xadiid abi saciid alkhudri radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam ilaahay rasuulkiisu waxa uu yidhi ina lilahi tabaaraka watacaala cutaqaa'a fi kulli yowmin wa leyla xadiidkani afuraaddiiba ku gaar ma aha habeen kasta iyo maalin kasta oo ramadaan ilaahay addoommadiisa qaar buu naarta ka xoreeyaa sidoo kale wa ina likulli muslimin fi kulli yowmin wa leylatin dacwatun mustajaabatun qof kastoo muslima waxaa u sugnaaday maalin kasta iyo habeen kasta duca la aqbalo sheekh albani xadiiskaas fi saxiixi tarkiib oo ku saxiix yeelay marka habeen iyo maalinba saacaddaas la joogo ama habeenku ha ku ahaato ama maalin ha ku ahaato qofkii ilaahay subxaanahu watacaala u hoggaansamay oo bishii ramadaan maalintii soomaaya wixii khayruu ku dadaali karo ku dadaalaya wuxuu leeyahay duco ilaahay uu ka aqbalayo marka inuu qofku ducada badsado oo ilaahay subxaanahu watacaala cafwa alcaafiya fi dunya walaakhira weydiisto xasana fi dunya xasana fi alaakhira weydiisto aa loo jiideeyaa waxay ka mid tahay fadliga bisha ramadaan bisha fadligeeda waxaa ka mid ah low nebigu calayhi salaatu wassalaam uu tilmaamay xadiidka isaga ah in qofkii loogu khatimo soon uu noqonayo dadka ahlu jannaha sida qofka loogu khatimo kelimatu tawxiidba uu u noqonayo dadka ahlu jannaha ah nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiidka uu ka wariyey xudayfa ibnu yamaan man saama yowman ibtiqaa'a wajhi illaah khutima lahu bihi dakhala aljanna
qofkii sooma maalin ilaahay wejigiisa doonid uu doonayo daraaddeed khutima lahu ee loogu khaatim yeelo qofka bihi soonkaas dakhala wuxuu galaa aljannata jannadu galaa. waxaa mashhuur ah xadiidka ah man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna. qofkii kelimad hadalkan ugu dambeeya uu noqdo laa ilaha illallah jannaduu galaa. xadiidkanna wuxuu tilmaamaa qofka isagoo sooman dhinta inuu jannada galo. fadaaisha soonka ee faraha badan ayay ka mid tahay. marka walaalayaal bisha noocaasa soonkeedu saa u fadli badan yahay, tahajudkeeda taraawiixdeeda fadli badan tahay. waa ka nebigu yidhi sala allahu alayh waalihi wasalam man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadam min dembih. ramadaan qofka sooma isagoo rumaysan ilaahayna ajir ka xisaabsanaya dembigiisa kii hore loo dhaafaa. waman qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadam min dembi. qofkii tukada ramadaan isagoo rumaysan ajirna xisaabsanaya waxaa loo dhaafaa dembigiisa kii hore. waman qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadam min dembi. qofkii tukada leylatulqadriga habeenka leylatulqadriga isagoo rumaysan ilaahayna ajir ka xisaabsanaya waxaa loo dhaafaa dembigiisii hore. xadiidkaas abu hureyra radiallahu canhu uu ka wariyey nebiga sala allahu alayh waalihi wasalam ayna soo saareen alimaam albukhaari iyo imaam muslim fii saxiixayhima. wuxuu tilmaamaa soonka la soomo in dembi dhaaf lagu helo, salaada habeenka ramadaanka la tukado oo taraawiixdii tahajudkii in lagu helo dembi dhaaf, habeenka leylatulqadriga in dembi dhaaf lagu helo. marka waa bil dembi dhaaf waay, waa bil ducada la aqbalo, waa bil fadaa'il fara badan. wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam man saama yowman fii sabiili illaah bacada allahu can wajhi naara 70 khaliifan. hal maalin ilaahay jidkiisa qof ku sooma, riwaayad kale lilaahi ilaahay darti qofka u sooma, ilaahay wuxuu ka fogeeyaa qofka wejigiisa naarta 70 sano. 70 sano ayaa laga fogeeyaa. walaalayaal marka bishaas in lagu dadaalo fadliga badan, soonkeedu fadli badan yahay, habeenkii tukashadeeda fadli badan tahay. waa bishii ilaahay subxaana watacaala qur'aan kariimka uu soo dejiyey. qur'aanka kariimka ee mubaaraga ah, kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak, kitaab barakaysan waa, kitaab barakaysan qur'aanka kariimka ah. waxaa in badan laga sheegtaa hadda qofka uu mashquulsan yahay, xataa ilmihii yaryaraay baa mashquul ka sheeganaya. hadduu qofku qur'aanka kariimka akhrintiisa badsado uu dhuuxo, waktigaa ilaahay subxaana watacaala ugu barakeeya. howlihii uu ku qaban jiray dhowr saac ayuu muddo kooban ku qabtaa, maxaa yeele qur'aankaa barakaysan. qofkii qur'aanka akhriya sida xadiidkaa tilmaamay, xaraf kasta 10 xasanaad uu ku leeyahay, ka badan ba haddaan laga siin. waa barako. imise xarafaad akhrin kartaa? qofkii qur'aanka dhegeysta naxariis ilaahay buu ku helaa. waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu lacalakum turxamuun. qofka qur'aanka xifdiya qiyaamada waxaa lagu yidhaha jannada dhexdeeda kor aad, akhri tartiib u akhri sida adduunyada u akhri jirtay. booska aad jannada ku leeda wuxuu noqonaa meesha ugu dambeyda, aayadda ugu dambeeda akhrido. yuqaalu lisaaxib alqur'aan iqra' warqa waratil kamaa kunta turatilu fi dunya faina manzilatak cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa. marka qur'aanka xifdintiisii waa barako, barakaa lagu helaa. akhrintiisii barakaa lagu helaa, dhegeysigiisii barakaa lagu helaa. sidaasoo kale qur'aanka in la fahmo oo lagu tadabburo waaba calaamadda hanuunka. man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam ilaahi. ilaahay qofkuu rabo inuu hanuuniyo qalbigiisu ku waasiciya oo ku ballaariya islaam. xadiidkana man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin, khayr ilaahay qofku la rabo diintu fahamsiiya. marka qofka qur'aanka kariimka inuu fahmo, qur'aanka kariimka inuu akhriyo waa calaamad tusinaysa qofka ilaahay hanuun inuu la doono subxaanahu watacaala.
barakada qur'aankay ka mid tahay. barakada qur'aanka kariimka ee ilaahay bisha ramadaan ku fadilay khaasatan leylatulqadriga ina anzalnaahu fii leylatin mubaaraka habeen barakaysan ayaan qur'aanka soo dejino ilaahay leeyahy habeenku waa barakaysan yahay. sidaa daraaddeed halkaa habeen kun bilooday ka khayr badan tahay. waa barakada macnaheeda saasa. qur'aanka lagu soo dhex dejiyey ku barakowda habeenkii. qur'aankii kariimkaa ka waran marka. habeenkii qur'aanka la soo dejiyey hadday ku barakowda qur'aankii la soo dejiyey ka waran qur'aankii kariimka ahaa. malaku jibriil malaa'igtu uu fadli badan yahay dhahan culummadu qur'aanka kariimka dartiis. nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam dadka uu fadli badan yahay qur'aanka kariimka dartiis. mako dhulkay ugu fadli badan tahay maxaa yeele qur'aanka kusoo dega markii ugu horreysay. madiina way ku xigtaa maka maxaa yeele iyada inta kaleo qur'aanka kusoo degay. waktiga bisha ramadaan bilaha ugu fadli badan maxaa yeele qur'aanka kusoo degay. bisha laftirkeeda habeenka leylatu qadriga maxaa yeele qur'aanka kusoo dhex degay. ummadaha ummadda nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ugu fadli badan kuntum khayra umma maxaa yeele qur'aanka ummadda xambaarta waa. dadka qofka qur'aanka kariimka barta ilaahay darti u bara dadkana bara ayaa ugu khayr badan. khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu sida xadiidka cusmaan bin cafaan fi saxiix bukhaari ku sugan. adiladaas waxay tusinaya qur'aanka mubaaraka ee barakaysan ee barakadiis ay ka mid tahay caafimaad qalbiga in lagu helo, caafimaadka jirka in lagu helo, balaayooyin fara badan in looga badbaado. qur'aanka kariimka ah yaa waa barakaysan yahay. waa barakaysan yahay. waxaa hadda igu soo dhacday habeenada ka mid ah ayaan intaan cisho tukanay baan baxay. marka xaafaddii anoo usii socda baan qur'aanan sii akhrisanayay. mar hore ay ahayd walaalaa isoo wacay. marka qur'aankii yaan ka sheekaysanaynay. intaan sheekaysanayna waxaan soo istaagay meel qolooyin shurdada booliisku uu xiray oo dadka la baarayo. waxaan eegay warqadihii laga reebay ma wato. wadaadkan wada hadlaynaan ku iri niyow haddaad warkayga weydo la soco. warqadihiina ma wato, booliiskiina waa ibaarayaan. jidka dhan bay xireen. kii ugu horreeya ay weydiiyey warqadihii ma haysto. calaamad cagaaran buu baabuurka maraayadiisa ku dhejiyey oo astaan u ah qofka booliiska ku xigaahay oon xaggiisa u sii socdaa uu arko inaan mukhaalafaad aan ku jiro oonan qaanuunka waafaqsanayn. markuu arko ileexiyey dhinaca bidixuu ileexiyey jidkii uga saare sida lagu sameeyo qofka mukhaalafada ku jira oo wax lagu haysto. dhinacayga midig nin baa la haysto oo dhowr booliis ah ma 5 ma 6ba isugu tegayday uu qaylinayay. dhinaca bidixda mid kale asna dhulka lagu hayay. aniga hore uu sii socduu yiri soco. marka soco uu ileeyahay. marka tartiibaan u socdo waxaan la gaaladan yani ku tooganin cimaamadii waxbaan iska wato. qofku waswaasuu iska qabaa gaalada markuu dhex nool yahay. dhibaatada gaalada uu dhex nool yahay ka mid tahay. cuqdaduu iska qabaa qofkii. mar gabalna waa run gaal lagama aamin qabo, mar gabalna waa run ma aha. calaa kulli xaal marka soco uu leeyahay hore u soco. tartiibaan u socdaa. soco uu leeyahay meeshana mugdiisii noqonaya. meeshu jid ma aha, waa meel yaroo dhismo dusheesa marta. waa socday jidkii baan ku soo dhacay. waxaan iloobay markii aan wadaadka sidaa ku iri wuxuu igu yiri adiga hadda soo qur'aan akhrimayn. haa ilaahay wuxuu yiri waidaa qara'ta alqur'aana jacalnaa baynaka wa bayna aladiina laa yu'minuuna bilaakhirati xijaaban mastuuran. qur'aanka haddaad akhrido adiga iyo kuwan aakhira rumaysan waxa idin dhex dhigaa wax idin kala teeda. soo aayadda akhrimayn. haa ku arki maayaan buu ugu yiri. runtii wadaadku inuu aayadda u daliishado xaaladayda markii 100% arrinaan hubay ma aha. calaa kulli xaal sidaasaa dhacday. mukhaalafadkaasaan ku jiray. calaamadaasa baabuurka la iga dhejiyey. jidkaa la iga leexiyey.
kadibna jidkiiyaan ku soo laabtay. maa masani durun, wax tafsiir aan ahayn. wadaadkii baan waca, waxaan ku yidhi niyow sidaasaa dhacday. maxaan kugu iri buu yidhi, waxaan aaminsanaha markaas min barakati alqur'aan, qur'aanka akhrintiisa barakadiisa inay ka mid tahay, waxa aanan ogeynaana ka badan. marka bishaan waa bish barakaysan. qur'aanka kariimka marka akhrintiisa in la badsado, ducada in la badsado, salaada in la badsado, in la badsado sadaqada, in la badsado wanaagga. ugu dambayn walaalayaal, waxaan inaan xasuusanno waxa weeye arrinta ugu weyn ee loo jideeyey in la soomo maxaa waaye, waa in ilaahay laga cabsado oo qofku xaalad taqwa uu ku sugan yahay, lacallakum tattaquun. waxa ugu weyn oo qofku adduunkan ka kororsadana waa taqwada. watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa. taqwaduna waa qalbiga waaye. attaqwa haahuna, attaqwa haahuna, attaqwa haahuna, washiiru ilaa sadri 3 maraat. nebigu calayhi salaatu wasalaam xabadkiisuu tilmaamay 3 mar, yiri taqwada ka cabsigu halkan waa qalbiga. ha yeeshee taqwada qalbiga ku jirtaa waxaa qasaba xubnaha inay ka muuqato, oo qofkii wanaaggii ku hadlaayo, qofkii oo macsidii ka jeesanayo, qofkii macsidii aanu dhegaysanayn, qofkii macsidii aanu ka qayb qaadanayn, qofkii macsidii aanu ku fakerayn. dhinaca kale uu qofkii daacadii ilaahay xuskiisa, muxuu ahaa, oo dikrigiisa qalbiga iyo afka iyo xubnahaba uu ka haayo. calaamada taqwada sidaas weyn. maaha qofku inuu soonkii iyo biyihii ka soomo, laakiin muxaramaadkii markii horeba xaaraan ah soon ka hor, sida xantii iyo dulmigii iyo khiyaanadii iyo isku dirkii iyo waxa lamidka inaanu ka soomin ma aha. maxaa yeelay nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam, sida bukhaariga ku sugan, man lam yadac qawla zuuri walcamala bih falaysa lilahi xaaja fi an yadaca طacaama washaraaba. qofkan ka tegin hadalka been abuurka ah iyo ku dhaqmidiisa, macsida qofkan ka tegin waa ilaahay danka ma laha inuu qofkaas cunitaankiisa cabitaankiisa uu ka tago. marka ulajeedka loo jiideeyey qofku inuu taqwada laazimo waa. sidaa daraaddeed qofka sooman, xataa qofkii raba inuu la dagaalamo, qofkii raba inuu la murmo, waa inuu u sheego yidhaha innii saa'im, waa soomanahay, dagaal diyaar uma ihi, muran diyaar uma ihi. waxaan loo ogolayn alrafath wasakhab. alrafath muxuu ahaa, waa macsi un weeyaan. macsidaana waxaa ka mida muxuu ahaa waxa la xiriira rag iyo dumarka iyo shahawooyinkoodaas. qofku intuu soomaya looma ogola. iyo xalaasha way xaaraanta markaasay xaaraan tahay, oo ninkii xaaskiisii shahwo ahaan uma damci karo. dhunkashada allah ka dhigo markuu sooman yahay. yadacu shahwatahu wa zawjatahu min ajli, xadiidkii qudsiga ahaa. qofkan jacaylkiisa iyo xaaskiisa wuxuu uga tegay dartee buu ilaah yidhi subxaana wa tacaala. lama ogola. saasoo kale inuu ka tago buuqa iyo muranka. walaa yaskhab buu yidhi, yaanu buuqin qofkii. marka qofka sooman waa qof degan, oo qof dikri ilaahay afka ku haya, oo qof indhihiisa laaba, oo qof dhegihiisa xaaraanta ka laaba, oo qof afkiisa xaaraanta ka laaba. waa qof ilaahay subxana wa tacaala qur-aankiisa musxafka eegaya, qur-aan kariimka akrinaya hadduu eegi karo. yaa ilaahay ugu nicmeeyey indhahaas wax ku arko, oo nicamka ilaahay kuwa ugu waaweyn ka mid ah, oo musxafka ilaahay akriyo. dad badan waxaa arkay taleefanada qur-aanka akrinaya. waxaa ka fiican qur-aan kariimka inuu musxafka qofka qur-aanka akriyo hadduu ka akri karo. fashaahid walaalayaal, marka in sadaqadan la badsado. bisha qayb ka mida waa tagtee, labada ka hartay lagu dadaalo. waxa ugu weyn oo bishan gudaheeda la sameeyo oo ugu fiican oo qofkii la waafajiyo khayr la waafajiyey waxa weeyaan atowbatu ilallah. qofku ilahay inuu u laabto, qofku ilaahay inuu uga laabto. kii macsi ku jiray macsidii ilaahay uga laabto. kii gaboodfal ku jiray yaaniba macsi ahayn waqtigiisa luminayay, warar iyo qiila waqaala iyo ciyaaro iyo waxaan waxba uga soo laabanayn, waqtigiisa ku bixiyo. waxa uu berri ku farxi doona markuu rabbi la kulmo. ilaahay subxaana wa tacaala na waafajiyo. hada wallahu aclam, wsala allahu wasalam wbaarak cala nabiyina muxamed
وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.